سويسان إنشاقة وربحت سويسان إنشاقة أحمد مدوبة داون أحمد مدوبة داون 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 dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo in Axmed Madoobe wax laga weydiiyo arrimaha Jubbaland iyo inuu ka qayb galo shirka arrimaha doorashooyinka ayaa ka dhacay degmooyinka Balad Xaawo iyo Baar Dheere oo ka wada tirsan gobolka Gedo Jubbaland bartamaha magaalada Balad Xaawo oo iyadu barqanimadii maanta uu ka bilowday dibadbixii ugu weynaa ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo kan degmada Balad Xaawo inta ay ka hadleen ururadii haweenka gabdhaha annagii culumadii odayaashii waxgaradkii aan muujinno dareenkanaga iyo mowqafkayaga oo saakaan isugu soo baxnay gobolka Gedo dhammaan iyo meelo kala duwan in Axmed Madoobe waqtigiisa uu dhammaaday Axmed Madoobe waqtigiisa waa dhammaaday dawladda Soomaaliya iyo siyaasiyiintii Jubbaland iyo dadkii waxgaradka ay hawsha waday Axmed waxa la siiyay waxay ahayd iyo beesha caalamka muddo 2 sano labadii sanana waa dhamaatay sababta loo siiyayna waxay ahayd annagana inta tanaasulaadka aan ku samaynay in Axmed xal uu keeno dib u heshiisiin keeno isu keenidii dadka uu keeno ma aysan dhicin arrinta iyadahay waa laga waayay wuxuu galay waxaysan Jubbaland u dirsan Axmed Geednaar waxaan leenahay mana matali karo haddii ay daacadnimo jirto haddii ay jirto shuruuc caalami oo la xushmeynaayo ay jirto shirk waqtigaaga waa dhammaaday shirka looga hadlayo masiirka nabadda Soomaaliya haddana reer Jubbaland waxaa nooga qayb galaya Axmed Bulgaret arrintaas ma isku raacsanahay annaga waxaa nagu matalo gudoomiyaha gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya prime ministerka beesha caalamka African Unionka waxaan ka codsanaynaa haddii aad qadarinaysaan xuquuqda 100,000 oo Soomaali ah oo hal gobol degan qofka saxda annagana matalo oo noo ah safiirka hana matalo anigoo afka odayaasha dhaqanka ahna afhayeenkoodii gobolka Gedo ama degmada Balad Xaawo gaar ahaan waxaan ka hadli rabnaa maanta oo u soo bannaan baxnay 2 qodob waxaan rabnaa annaga doorasho loo dareero oo degdeg ah rabnaa oon ku xirneen wax shuruuda qodobka labaad waxa weeye annaga Jubbaland baan nahay gobolka Gedo haddana laakiin waxa uu hadda Axmed Madoobe dhoobay ama uu wato wax shaqo oo ku leenaa ma jiro horaan uga hadalnay waxaan leenahay shaqo kuma lihin magacaabida wasiirada asaga laftigiis waqtigiisi waa dhamaadaan leenahay waxaan u sheegaynaa adduunweynaha international community-ga dawladda Soomaaliya cid kasta oo Soomaaliya danayso inaysan Jubbaland dawlad loo dhan yahay ka jirin Jubbaland maadaama dawlad loo dhan yahay aysan ka jirin waxaan codsanaynaa in dawladda goboleedka Jubbaland loo dhigo gogol ay ku heshiiso oo ay ku dhisato maamul loo dhan yahay gobolka Gedo wuxuu ka kooban yahay 9 degmo Jubbaland waxay ka kooban tahay 14 degmo ilaahay baa leeyahay ku dhaarshay wax xaq inuu ka jirin baan idin sheegaynaa Jubbaland dadku la soo shaqeeyay aniga dadkii la soo shaqeeyay baan ahaa dadka maanta la magacaabay dadkii maanta la soo shaqeeyay baan ahaa dadka u macna badanna waa ahaa maalinka u dambeysay oo tagay oo Kismaayo tagay oo madaxtooyada Jubbaland aniga anaba aan galay ilaahay baan ku dhaartay gabadha wasiirka saaka laga dhigay aniga soo socdo wasiirka ku sheegay Axmed Madoobe irinka lagu reebay ayada annagu Axmed waa diiday dadku dambeeyana waa ahaa dalkan annaga iskale dadkiisuna waa inaga dalkan annaga iskale dadkiisuna waa inaga inuu daga waxaan ahayn way dadkeena ma kaafisee alla ninkii diiday oo nadaaya laga xisho Axmed Madoobe ma doonaysaan yaa idinku qasbi kara ra'iisul wasaare Rooble waxaan leeyahay Rooblow rajo badan ayaan kaa qabnay laakiin rajadanada waxay dhamaanaysaa markaad Axmed Madoobe taageerto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
kadib markuu axmed madoobe siiya aqoonsi 2 sano madaxweyne farmaajona waxaan ka codsanaynaa inuu cafisna weydiiso ra'iisul wasaare rooblena waxaan ka codsanaynaa inuusan qalad naga gelin horey ayaa dulmina loogu sameeyey axmed madoobe wuxuu nagu samayn lahaa oo noo haray ma jiro dadkanaga wuu laayay dhulkanaga wuu qaatay baddi wuu gatay dhuxushi wuu gatay xuduudii wuu gatay wiilashanada wuu qaatay shabaab ayuu noo adeegsaday war maxaad mactasuuqiisana wuxuu yaalaa Nairobi oo asaga talada laga rabo waa inuu Uhuru la weydiiyo hadee nin Uhuru caqli ah ama la tala ah annaga macnaha inaan isfahmayno waad ogtihiin axmed dameer waxaan iyo codkaas ku daraynaa beesha caalamka inta wax garadka ah maamulada Soomaaliya dawladda Soomaaliya axmed madoobe waa nin dhacay waa nin 12 sano dhiig faraha kula jiray shacabka Kismaayo habeen boqol qalanayay dooli mayno Buntland walaalanahay waan kala fognahay waxba iska maqaydasano ninkan waalan ee macasha weyn oo maxishooda ah ee axmed madoobe ku daba tukada oo gada ku waashay naga ceshta hadana naga mawlid jaamac farax mawlid galwaaq warbaahinta shabeelle magaalada Garbahaare iyo xarunta gobolka Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier